dekada ugu weyn gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah saylada magaalada Burco oo saaka goor hore halkaas u gaadhnay oo bacda salaada subaxa boqolaal kun oo neef oo xoolaha nool ah loo dhoofinayo dalka dibadiisa gaar ahaan dalalka Carabta ayaa halkaas lagu kala iibsanayay waxa goobta ku sugnaa gaadiidka nooc kasta oo markaasi xoolo qaadi karo oo ugu yaraayeen gaadiidka loo yaqaan noohada oo ka keenaya meelaha u dhow magaalada Burco ama duleedka magaalada Burco ee xoolo dhaqatadu degan tahay sidoo kale waxa ku sugnaa gaadiidka waaweyn ee loo yaqaan cadameylaha iyo baabuurta isjiidka ah ee Itoobiyaanka ee markaasi dekada Berbera ka qaada alaabooyinka rarka Itoobiya uga soo degaa oo halkaas ayaguna si daabula u keenaya xoolaha nool ee markaasi laga keenayo dhulka kilka shanaad ee Soomaaliya Itoobiya sidoo kale waxaan goobta ka maqnay ciidamada booliska iyo kuwa taraafiga oo kala hagaya baabuurta halkaasi iskugu timay tirabeelka iyo sidoo kale ciidamada booliska oo ayaguna sugaya amniga goobta wax lagu kala iibsanayo saylada weyn ee magaalada Burco